السلام عليكم kusoo dhawaada shabakada ducaale technology ee lagu barto cilmiga kombuyuutarka. laba qaybood oo hore oo cashar ayaan soo qaadanay oo aan ku soo qaadanay kombuyuutarka dushiisa hoostiisa, laakiin uma aynan gelin. maanta waxaan doonaynaa kombuyuutar maxaad ku iibsanaysaa haddaad iibsanaysid, kombuyuutarka sida loo furo, sida loo baktiyo, sida folder looga dhex sameeyo, sida folderka loo dadgareeyo, sida magac loogu bixiyo, control panelkii oo iyadu ah qayb muhiima halkaas oo ah sida windowska daaqada sida loo bedelo, muraayadan desktopka sida loo screen saver loogu sameeyo. waxaas oo dhan ayaynu iyadana ku baran doonaa. markaas soo dhawaada ayaan idin leeyahay. awalan kombuyuutarka dadweynaha shadid kombuyuutarka bottom ayuu ku leeyahay halka ka sareysa keyboardka. kombuyuutarka qaarna dhinac ayaa laga dhigaa, qaarna dhexda ayaa laga dhigaa. taas qof walba oo indha lagu iska arki karaa. haddii aad doonaysid inaad baktisid kombuyuutarka, Windows 10 ayaa aniga u jira. halkaas ayaad tegaysaa. halka markaad tagtid halka powerka oranta ayaad ku silfanaysaa. halkaas isugu sareysa waa sleep, halka ku xigta waa shutdown, halkaas ugu dambeysana waa restart. saddex shaqo kale ayay kala qabtaan. taas sleep waxa weeye halka kugu soo qoraya this PC stays but uses halka uu shidnaanaya laakiin wuxuu adeegsanayaa power yar. wuxuu kaloo leeyahay applicationada iyo wixii ku furaan kama xidhmayaan. shutdowntana waxa weeyaan gabi ahaantiiba close all apps and turns off the PC, gabi ahaantiiba xidh oo bakti. restart waxa weeyaan close all apps, turns off the PC and turns it on again. kombuyuutarka oo dhan bakti haddana dib usoo kiciye ayuu ku leeyahay. haddaad doonaysid inaad kombuyuutar iibsatid, kombuyuutar marka ugu horeysa waxaad ku iibsanaysaa, kusoo xulan karaysaa, waxaad tegaysaa halkaas ay ku qoran tahay this PC. haddii aad adeegsanaysid weeye kombuyuutar ay ku jirto Windows 10. haddii ay kugu jirto Windows 8 ama 7, Windows 7 saa u taqaaniin, waxaa kusoo baxaysa calaamad yar oo sidan u eg. halkan hoose waa ujeediin calaamad saa u eg ayaa kusoo baxaysa. calaamadaas ayaad ku dhufanaysaa. markaad calaamadda ku dhufatid, halkaas ayaad saa u dul dhufanaysaa calaamadiisa. waxaad doonaysaa right click, properties ayaad tegaysaa. halkaas ayaad ka eegaysaa kombuyuutarka qaybihiisa. inta shaqo uu mar qabanayo processorka, inta shaqo uu hal mar wada qabanayo, 64-bit operating systemka. hadduu 64 ka yar yahay waa khalad, 32 hadduu yahay waxay iibsan iska ilaali. halkan waa 4GB waa iska fiican tahay, 2GB iyo waxaa iska ilaaliya. marka qaybo badan ayuu leeyahay system protectionka, halkaasoo kalead ka eegaysaan. waxaas oo dhan waa shaqo dheer oo lagu iibsado kombuyuutar markaad doonaysid iibsatid. waxaad kaloo doonaysaa inaad ogaatid Windowska kugu jira. halkaas ayaad ku ogaanaysaa Windows 10 mise waa Windows 7. saas ayaad u ogaanaysaa iyada. okay, na kasoo gudubna sidee folder loo sameeyaa ayaa casharkan inoogu xigta. folder waxaa loo sameeyaa halka cidlada ah ayaad right click oranaysaa. kadib waxaad tegaysaa new markaad tagtid waxaad kasoo dooranaysaa folder markaad kasoo dooratid halkaas ayuu folderka imanayaa. marka folderka markuu halkaas u yimaado sidee magac ugu bixinaysaa waa taala. wax magac ugu bixinaysaa saas unbaad u dul tegaysaa, hal mar ugu dhufanaysaa. waxaad oranaysaa right click ayaad siinaysaa. markaas ayaad oranaysaa rename, magac u bixi. markaas ayaad magac u bixinaysaa. tusaale magacaynu bixina waxa weeye ducaale technology oo kale bixinaysaa. ducaale technology oo kale ayaad bixinaysaa. halka cidada waa iska dhufanaysaa si uu save garoobo. marka waa kaa maxaa ku qoran ducaale technology ayaa ku qoran. si fiican buu u jeedin ayaan filayaa. ducaale technology waa kaas. okay, waxayna ugu sii xigta ayaan filayaa qaybta kale oo la yiraahdo delete garaynta. waa imika waan save garaynay oo waanu sameynay sida loo delete gareeyo. waayay hal mar saa u dul tag, left right click si delete wata ku taala delete garay wuu iska tegay. okay, wixii aad delete garaysay hadba halkii tagayaan waxay tagayaan halkaas oo la yiraahdo recycle bin. qaybta halkaas ku qoran oo la yiraahdo recycle bin oo u jeedin ma filayaa. qaybtaas recycle binkaas waa tagaysaa. markaas ayaad eegaysaa wixii aad delete garaysay. waa kaa imika ducaale technology waa kaa. haddii aad rabtid inaad soo celisid hal mar waad saa ugu dhufanaysaa. marka halkaa wuxuu kuu soo qorayaa imika waa ujeedin restore the selected items, soo celi itemka la doortay. qaab kale oo fududna waa samayn kartaa oo qaabka ka duwan. waxaad oranaysaa iyadana intaad saa u dul tagtid ayaad oranaysaa properties marka ku dhufatid ayaad oranaysaa restore. waad restore garanaysaa. wuxuu tagayaa imika Windows
waxaan leeyahay desktopkeeni halkaas ayaynu ugu tegaynaa. waa kaas ducaale technology waa halkaas waa folderkeenu dul garaynay kasii soco waayahay iminka recycle binka ayaynu u nimi recycle binka saas ayay wax ugu dhacaan haddii aad doonin recycle binka inaad iska xidhid oo aanay waxba kaaga dhicin na waxaad samayn kartaa intaas aad u tagtaa right click markaas properties ayay tegaysaa propertieskaasna halkaas ayaad kasi doonaysaa custom size halkaa ay ku qoran tahay ayaad tagta kartaas halkaas tegaysaa do not move files to the recycle bin move files immediately when deleted dhaqso u dhigaya waxba recycle binka hay ugu reebin weeye laakiin u baahan imika customize ayaad siinaysaa apply ayaad oranaysaa okay markaas ayaad oranaysaa okay marka haddii aad doonaysid inaad recycle binka aad gebi ahaantiiba marisid waxa weeyaan 2 jeer ku dhufo imika left click siiyey marka wuxuu ku leeyahay click import recycle haddii aad doonaysid inaad gebigiisaba marino halkaas ayaad ku dhufanaysaa waa ujeedin baa filayaa halkaas ay import recycle bin ku qoran tahay ayaad oranaysaa dadkan waxaad oranaysaa are you sure you want to permanently delete these items ma rabtaa inaad dhammaantood ka saartid itemskan haa oo kala noqonaysaa way ka tagayaan wixii noogu jiray oo dhan okay isagana intaas kusii dhaafno waxaan filayaa qaybtaana aad ka faa'iideen si fiican marka haddaad doonaysid imika inaad control panelki ayuu nimi ma rabo inuu cashar kusii dheeraado marka control panelka isagana waad u imanaynaa waa kaas halkaa yaala control panel waaye ku dhufo sidee muraayada loo bedelaa waxaad oranaysaa appearance and personalization waxaan rabaa inaan muraayada iska bedelo personalization ayaad ku dhufanaysaa colorkaas ayaad dooranaysaa colorkaa doontid imika kaasoo kale ayaan doonayna iska bedelo windowska ku dhufo windowskaasaan ku bedelayaa si aad usoo eegtid waxa dhacayna halkaas ayaad tegaysaa desktopka dhammaadkiisa saas ayuu isu bedelay sidaas ayuu markaa uu isu bedelayaa haddaynu kan iska yaraynaba saas u bedelayaa marka inagu qaybta imika waa isticmaalna flowerskaas tegaynaa flowerska ka wacan qaybta markaa flowerska saas ayay u qurux badan yihiin haddii aad rabtid inaad screen saver oo kale ku samaysid waxaad tegaysaa halkaas screen saver ku qoran tahay oo hoose marka halkaas aad tagtidna okay ayaad siinaysaa marka ayaad halkaa waxaad ka doonanaysaa qaybta imika farta oo kale waa 3D tags haddii aad doonaysid waxaas oo kale ku dhufatidna waxyaaba saab yaacaya waxaa markaa u baahan inagu waxaad tegaysaa oo kale side text halkaa ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa marka ayaad ku dhufanaysaa wixii aad doonaysid ka dhigtid magaca ayaad tegaysaa halkaas ayaad ku dhufanaysaa magacaas ayaad ka baabinaysaa waxaad ku qoraysaa oo kale ducaale technology saa markaad ugu qortid ayaad waxaa oranaysaa font waa farta sida ay u kala qurux badan tahay qaybtaas oo kale ka dooro okay qaybtaan okay sii halkaas solid color ay ku qoran tahayna waxa weeyaan colorka ayaad ka bedeli karaysaa custom colorka waa sii saxaysaa markaas ayaad colorka dooranaysaa colorka markaad dooratid asaan bilowga dhig okay sii qaybtan hoosena kaalay refractionka okay markaas siinaysaa haddaad doonaysaa sii eegtid qaybtu noocuu yahayna waxaad doonaysaa preview markaa qaybtu saas ayuu noqonayaa ducaale technology waa kaas halkaa carcararaya okay haddaad doonaysid inaad iska bedeshid sidan uu wareegayana waad ku celinaysaa halkaas rotation tab ku qoran tahay ayaad ka bedelaysaa wabbalkaas ayaad ka bedelaysaa tumble oo kale ka dhig okay tumble ka dhigtid previewda wasu isu bedelo aad aragtid waa kaas saas ayuu isu bedelayaa apple ayaad oranaysaa markaasna ayaad okay sii oranaysaa qaybtaas iyadna saas ayaynu kaga baxaynaa okay waxaad rabaysaa inaad iska bedeshid iconskan computerka ku saaran ama qaybaha imika halkan waxaan computerka halkan yaalo oo kale inaad iska bedeshid ayaad u baahan tahay okay waxaad ku dhufanaysaa wax kale simply halkeeni baad ku noqonaysaa control panelkii markaas change desktop icons markaasaad ku dhufanaysaa okay kuwaas ayaad saxda ka qaadaysaa dad doonaysaa meeshaba ka saartid oo aanay soo noqonin mar dambe
ma rabo inuu casharku sii dhammaado sii fogaado maanta intaas ayaan ku joojinayaa waa cabdiraxiin siciid ducaale waxaan idin rajeynayaa inaad ka faa'iideen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu